waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجكي كبر هودا وعاد كدعوتان في قرن جمهورية الصوماليلاند كان دغيستان إذاعة راديو هرقيس. maanta waxaynu qaadanaynaa cutubka sagaalaad casharkiisa koobaad iyo labaad baynu qaadanaynaa wuxuuna ka hadlayaa waa cutub cusub astaamaha qoraalka ayuu ka hadlayaa astaamaha qoraalku waa calaamadaha qoraalka weeye markaa calaamadaha qoraalka waxa weeyaan hadalku sidiisaba haddii aanu astaan ama aanu calaamad lahayn waxaa ka tegaya macaanidaa ka tegeysa quruxdaa ka tegeysa dhadhanka baanu yeelanayn markaa si waxaasoo aynu uga taxadirno ayaa waxaa loo sameeyey waxa loo yaqaano astaamaha qoraalka ayaa la sameeyey sida ay luqadaha kaleba u leeyihiin calaamadaha markaa maanta waxaynu qaadan doonaa cutubka sagaalaad casharkiisa koobaad waa 2 dhibcood astaamaha qoraalka 2 dhibcood ama shumo ama 2 shumood ereygaana waa loo isticmaalaa oo waxa weeyaan maadaama aynu nahay dad asal ahaan dhaqankeenu reer guuraa yahay dadkeena xoolo dhaqatada ahi waxay isticmaalaan waxa loo yaqaano sumad xoolaha lagu dhigo geela looda inta badan xoolaha dameeraha oo kale sumad baa lagu dhigaa sumadaas waxa weeyaan waa sumad 2 dhibcood ah marka waxa weeyaan 2 dhibcood ilaa haddaan sidan u dhigo kula waa 2 dhibcood kono haddaan kula waa 2 dhibcood ee sax maaha laakiin 2 dhibcood la doonaya waa 2 dhibcood ee shumiyaha ee isdul saaran cashareen ugu tagi doonaa waa maxay waxa loo yaqaano 2 dhibcood maxay yihiin marka xoolaha lagu suntaa inta badan waxa laga yaabaa in reer nin baadidoon ku yimaado yiraahdo waa awr 2 shumood leh maaragtay 2 dhibcood buu markaa u jeedaa oo isa saareen buu markaa u jeedaa okay aan eegno casharkeena haddaba 2 dhibcood waa calaamada 2 dhibcood ee markaas isu dul saaran ayaa laga hadlayaa oo ah sumadaha markaa qoraalka dunuucda casharka haddaynu yara taabano aynu dul marno waa inaad markaad casharka dhigato waa inaad garan kartaa qoraalka af Soomaaliga ardaygu waa inuu akhriyi karaa ama uu garan karaa qoraal kasta oo af Soomaaliya oo ku yaala meel waayahay waa inaad isticmaali kartaa astaamaha qoraalka calaamadihi waa inaad isticmaali kartaa halkii joogsi kaaga baahan iyo halkii hakad kaaga baahan iyo halkii kaaga baahan 2 dhibcood kaaga baahan iyo halkii calaamad su'aal kaaga baahan waa inaad garan kartaa markaa ama isticmaali kartaa astaamaha qoraalka waa inaad qurxin kartaa qoraalka quruxda kuma soo haro haddii aad qurxin weydo qoraalka waxyaalaha qurxiyana waxaa ka mid ah qoraalka calaamadaha ka mid ah astaamaha ayaa ka mid ah markaa in qoraalkaagu noqdo mid qurux badan markaa waa inaad adeegsan kartaa sumadda 2 dhibcood oo waa inaad taqaanaa meesha loo adeegsado sumaddan 2 dhibcood waxaynu ujeedadaynu ka hadlayna waxa weeyaan inaynu garanno sumaddan waxay tahay iyo sida loo adeegsado marka waa inaad adeegsan kartaa sumadda 2 dhibcoodna waa inaad adeegsan kartaa markaa oo iyana aad isticmaali kartaa waaya haddaba waa maxay 2 dhibcood waxaa lagu weydiiyey 2 dhibcood waa calaamad astaamaha laga hadlayaa waxaynu soo qaadanay 2 dhibcood waa maxay haddaba 2 dhibcood aynu sheegayna markaa 2 dhibcood haddaynu tusaalahaan soo qaadano ama aynu isnaaro isku dayno inaynu sharaxno ama qeexno 2 dhibcood waa 2 dhibcood
oo u dhigan habka iskorsaarka una qoran sidan. Hadeeg waxaynu ka hadalnay hore waxaan idinku yidhi labada dhibcood haddii aanay isa saarnayn ma aha kuwaynu ka hadlayni. waa labada dhibcood shumaa is dul saaran weyaan marka labada dhibcood ugu sheegayaa waa laba dhibcood oo u dhigan habka iskorsaarka way iskor saaran yihin way kala sareeyaan una qoran sidan waxaana loo qorayaa sidaasaa loo qoraya markaa qoyska ku jirta ee labada dhibcood ka muuqdaan waxaana loo adeegsadaa siyaabo kala duwan oo ay ka mid yihiin qaabab baa loo adeegsadaa. marka qaababka loo adeegsado labada dhibcood waa inaynu garan karnaa qaab kasta ama qoraal kasta inuu qorayno marka aynu marayno halkii la adeegsanayay labada dhibcood. haddii meelaan munaasib ku ahayn oo aan loogu talagelin lagu isticmaalo aad ku isticmaasho labada dhibcood dee waxaa lagu arkayaa qof aan qoraalkii af soomaaliga si fiican u garanayn baa lagu arkaya marka waa inaad ilaalisaa meelaha iyo hababka loo isticmaalayo sumadda labada dhibcood. tusaalaha koowaad waxay tilmaamaan inta kooxi ka kooban tahay. koox baan rabaa inaan tiriyo ama kooxdaas waxay ka kooban tahay intaa iyo intaa iyo intaas ma doona idhahdo qaabkee baan u dhigay midda. haddaba u fiirso sida loo isticmaalayo markaynu koox ka hadlayno. tusaale ahaan kooxda waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano wadamada adduunka o dhan de waa marka wadamo la tiri magaalooyin laguma dari karo. haddii qaarada la tirinayana laguma dari karo wadamo laguma dari karo. waayo waa isku koox bay noqonayaan. qaaradu waa isku koox wadamaduna koox bay noqonayaan caasimadaha ama magaalooyinka caasimada koox bay noqonayaan. marka waxaan ku idhi waxay tilmaamaan inta kooxi ka kooban tahay. haddaba u fiirso sida loo isticmaalayo. qaaradaha adduunku waa maadaama ay koox yihiin dee hal qaarad qura maahe waa wax fara badan baynu tilmaamaynaa. waa kaa labadii dhibcood baynu isticmaalnay markaasaynu africa hakad aasiya hakad yurub hakad america iyo australia kooxdaas si aynu u tilmaano waxaynu isticmaalnay labadii dhibcood baynu isticmaalay. markaa si aynu u tilmaano waxaynu ka hadlayna inay koox tahay fara badan markaa tahay kooxdiina markaa aynu tirinayno oo aynu sheegayno. markaa tusaalahaas wuxuu caddaynayaa qaabka loo isticmaalo mar kasta oo aad ka hadlayso inta kooxi ka kooban tahay inta kooxi la eg tahay ayaad waxaad isticmaalaysaa waxa loo yaqaano sumadda labada dhibcood ayaad isticmaalaysaa. tusaalaha labaad oo weli aynu ku jirno isticmaalkii labada dhibcood waxay tilmaamaan hadalka qof yidhi. hebel wuxuu yidhi ereygaas wuxuu tilmaamayaa inaad soo wariso hadalkii qofkii kale inaad wariso maadaama aad hadalkii qofkii yidhi sidiisii u sheegayso waa inaad isticmaashaa labada dhibcood. marka u fiirso sida loo dhigo marka la qorayo hadal qof yidhi. bal hadda u fiirso dhihitaanka iyo qoritaanku waa kala jaad. markaad samaynayso ama aad qorayso hadal qof yidhi sidan baan loo qoraya. markaa hadda waxaan isticmaalaynaa gabayaagii wuxuu yidhi labada dhibcood baan saaraya. markaa because maxaan doonayaa inaan sababtoo ah hadalkii ka dambeeyey baan doonayaa inaan qoro. dee hadalkiisii ka dambeeyey ayaan doonayaa inaan qoro. calaamadaas waxay muujinaysaa hadalkaa dambaan qorayaa inuu yahay kii gabayaagu yidhi ee maaha mid anigu iska yidhi. waayahay gabayaagii wuxuu yidhi isqalloocinta iyo kibirka waa lagu khasaaraaye. waa line gabay abwaantiriye baa laga soo qaatay. markaasuu yidhi abwaankii wuxuu yidhi isqalloocinta iyo kibirka waa lagu khasaaraaye. hadalkaa yaa yidhi waxaa yidhi gabayaagii. maxaa caddaynaya hadalkii gabayaaga soo qaatay labada dhibcood aan isticmaalay. waayahay waxaa kaloo la isticmaalaa marka la rabo in sharax dheeraada laga bixiyo shay. waxaa kaloo la isticmaalaa marka la rabo in sharax dheeraada laga bixiyo shay. waa tusaale baan soo qaadanaya. aan doonayo inaan shaygan malabka inaan sharaxaad dheeraada ka bixiyo. malabkii ma doonaya sharaxaad dheeraada ka bixiyo. waayo maxaan leeyahay war malabku wuxuu daawo ka yahay wixii baan taxaya uu daawada ka. marka waa inaan sharaxaad dheeraada ka bixiyo. malabku wuxuu daawo ka yahay qufaca waa loo cunaa malabka cunto xumada waa loo cunaa calo xanuunka waa loo cunaa haddii alla ku rayay hurdala-aanta waa laga cunaa. micnaha waxaan sharaxayaa markaan doonaya inaan sii tilmaamo hadal sharaxaad badan in laga sii bixiyo ayaan doonaya. aan u noqdo markaa cashirkeennii. tusaalaha labaadna waxaan kusoo gabagabeynay waxaa kaloo la isticmaalaa
marka la rabo in sharax dheeraada laga bixiyo shayga hadda aan sharaxaya halkan ku sharaxaya wuxuu malab buu ahaa waayahay ardayga halkaa waxaynu ku soo dul marnay aynu isdul istaagno calaamadaha sumadda ay leedahay marka aynu dul istaagno waad aragtay labada dhibcood baynu ka hadlaynay labada dhibcood waa laba dhibcood oo isa saaran waxaana loo adeegsadaa noocyo fara badan baa loo adeegsadaa qaababkii waynu soo sheegnay marka koox la tilmaamayo qof hadal yidhi marka la tilmaamayo marka shay laga bixinayo faahfaahin dheeraada intaba shaqo howlguri baad markaa howlqabad shaqo guri falanqee meelaha loo adeegsado sumadda labada dhibcood waa maxay sumadda labada dhibcood goormo ayaa la adeegsadaa sumaddan qoraal kooban oo u adeegsanayo sumadda labada dhibcood iyo sumadaha qoraalka adoo ku daraya weedho murti leh ayaad samaynaysaa intaasna waa howlqabadkii aynu ku qaadanaynay astaamaha waxa loo yaqaano sumadda waxaynu ku daba qabanaynaa casharka labaad ee cutubka 9aad ayaynu eegaynaa oo isagana aynu ku qaadan doono sumadda loo yaqaano sumadda weydiinta markaa isagana waxaynu ku qaadan doonaa sumadda loo yaqaano weydiinta waa casharkii labaad baynu markaa isagana halkaa ku gelaynaa oo waxaan leenahay sumadda weydiintu waxa weeyaan waa sumadda loo yaqaano su-aasha waa su-aal sumadda weydiintu waa sumadda lagu garto su-aasha lagu garto bal iyadana in yar aan isdul taagno sumadda weydiinta iyo waxa loo isticmaalo iyo waktiga markaa loo baahan yahay in la isticmaalo waa cutubkii 9aad baa weli soconaya waad aragtaan waxa weeyaan casharkiisii labaad sumadda weydiinta haddaynu dul istaagno dulucdeeda in yar marka casharka aad barato ama aad dhigato waa inaad awoodaa ama waa inaad garan kartaa astaamaha qoraalka af soomaaligu noocyada ay ama sida ay u dhacayaan waa inaad garan kartaa marka waa inaad qurxin kartaa qoraalkaaga waayahay waa inaad garan kartaa sumadda weydiinta hadday qoraal ahaan u dhigan tahay iyo haddii oo ahaan marka la isticmaalo in su-aashaas u baahan tahay in calaamad su-aalkii la saaro markaa sumaddii weydiinteeda waa inaad taqaan sumadda weydiinta iyo adeegsigeeda sumadda iyo sida loo adeegsadana waa inaad taqaana markaa oo dee sumaduhu waa inay kuu kala socnaadaan oo aan iskaga ka qalmin hadda waxaynu baranay sumaddii labada dhibcood haddana waxaynu baranay sumaddii weydiinta waxaa lagaa doonaya markaa inaad sumadaha kala barato haddaba waxaynu isweydiinaynaa waa maxay sumadda weydiintu ilaa haddii aynaan ogaanin sumadda weydiinta ma sii gudageli karayno sumadda weydiintu waa sumad qoolaaban malaa qoolaabka ardaydu inay fahmi weydo waa laga yaabaa markaa waxa weeye shay kasta oo aan toosnayn oo lasoo qalloociyo ayaa waxaa loo isticmaalaa ereyga qoolaab ama waa sumad soo xoodan haddaynu idhahno kale marka sumadda weydiintu waa sumad qoolaaban oo loo qoro habkan baa loo qoraa waa taa iyadoo qoolaaban oo xagga hoose dhibic kule markaa waxaana la dhigaa dhammaadka su-aasha ama weydiinta weydiin ama su-aal labadaasna waa isku micne halka ama su-aashu markay dhammaato ama weydiinta halkeeda u dambaysa ayaa waxaa la dhigaa sumaddan okay haddaynu tusaale ka bixino markaa si aynu u qeexno aynu u aragno sida ay u dhacayso su-aashu iyo halka ay calaamaddu tegayso tusaalaha koobaad bejkiisa ama lambarkiisa koobaad saacaddu waa imisa ma caddaanayso ilaa aan calaamad su-aal ama aanu su-aasha weydiinta calaamadda weydiinta inaynu saarno dee ma cadda su-aashaadii markay qoraalka tahay inay su-aal tihiin in kale laakiin marka aad ku dhigto astaanta ama calaamadda ama sumadda weydiinta markaad ku dhigto ayaa lagu fahmayaa si aad la garanaya inaad jawaab doonayso inaad jawaab doonayso markaa sheeg talabaad baan eegaynaa sheeg midabka qalinkaaga su-aashii waa kaa calaamad su-aalkii baa la saaray ama calaamaddii sumaddii weydiinta la saaray markaana inay su-aal tahay oo aad jawaab markaa filayso ayaa laguu sheegayaa qodobka saddexaad qor qaar ka mida astaamaha qoraalka calaamad su-aal baa la saaray markaa iyadana waxaad tilmaamaysaa ama waxay caddaynaysaa inay tahay markaa su-aal maadaama aynu sinay calaamadda loo yaqaano sumadda weydiinta haddaynu in yar isdul taagno maxaynu faahfaahin ka sii bixin karnaa sumadda weydiintu had iyo jeer waa qeybta ugu muhiimsan ee hadalka ama qeybta ugu muhiimsan ee waxdhigista ama waxbarashada waayo qofka ama ardayga su-aalaha badan weydiiya dadka
ama su-aashiisu inta badan kaga actifsan yahay ardayda kale ee macalimiinta ama bulshada ama guriga markuu joogo su-aal weydiinta badani wuxuu helayaa faa'iido fara badan ayuu helayaa. markaa sidaa laajigeed waa qayb ka mid ah waxbarashada in wax la isweydiiyo ama su-aal la isweydiiyaa waxa weeyaan waa qayb ka mid ah tacliinta ayay markaa ku jirtaa. sidaa aawadeed waxay muhiim u tahay ama ay lagama maarmaan u tahay ardaygu inuu barto qaabka weydiinta iyo calaamadda weydiintu meesha ay dhacdo labadaba waa muhiim. sidaa aawadeed waxaa loo baahan yahay inaad taqaano calaamadda weydiinta, waxay goorta la adeegsado calaamadda weydiinta iyo meesha loo adeegsado intaba inaad markaa taqaano ayaa lagaa doonayaa. howlqabadka ardayga laga doonayo shaqo guri waxaa lagaa doonayaa inaad samayn karto. waxaa lagu yidhi shaqo guri baad u qaadaysaa falanqee sida loo adeegsado sumadda weydiinta. marka laygu leeyahay falanqee sida loo adeegsado sumadda weydiinta, sumadda weydiinta waxaa la doonayaa inaad fahan dheeraada ka haysato qaabka sumadda weydiintu ay u timaado iyo xilliga ay timaado iyo goorta la isticmaalayo sumadda weydiinta. marka hadalka la odhanayo iyo qoraalku waa kala jaad. had iyo jeer waxaa laga yaabaa markaaad hadlayso inaad hadalkaaga u bedeli karto qaabab kale oo lagu fahmi karo oo ciddaad la hadlaysaa ay kugu fahmi karto. laakiin marka qoraalka laga hadlayo waxaaba laga yaabaa qoraalkaaga ciddan akhrisanaysaa inaanay kulaba joogin baa suuragala. sidaa aawadeed waxaa lagaa doonayaa inay caddaato calaamaddaa isticmaashay waxa ay tahay iyo meesha aad ku isticmaashayba waa inay noqoto wax laysla garan karo oo cad waa inay noqoto. oo hadalku marka qofku hadlayo ee waraahda odhanayo iyo markuu qorayo waa kala jaad. markaad odhanayso dee qofka hadduu kugu fahmi waayo qaabkaad waxu weydiisay waad u bedeli karaysaa. laakiin marka aad qorayso qoraalkii wuu kaa tegey. mar haddii qoraalkii kaa tegeyna suuragal ma aha qofka qoraalkaagii gaadhay inaad mar labaad qoraal dib ugu saxdo way adagta. inaad mar labaad qoraal dib ugu saxdo way adagtay. sidaa aawadeed waxaa lagaa doonayaa inaad taqaano qaabka ay sumaddu u dhacayso iyo wakhtiga imanayso iyo meesha loo isticmaalayo iyo sida ay u eg tahay. waa inaad calaamadaha kala taqaanaa. calaamad waliba sida ay u eg tahay waa inaad taqaanaa. haddii aanad calaamaddaa garanaynin sida ay u eg tahay dee waxa weya waa mushkilad ku haysataa. ardaygu waa inuu yaqaanaa calaamaduhu astaamaha ay kala leeyihiin iyo siday u dhigmaan. oo waxa weya calaamaduhu way fara badan yihin. in doora ayaa calaamadihii noo hadhay oo kulley xagga dambe ku baran doontaan. laakiin waa inaad calaamadaha kala taqaanaa nooca ay yihiin iyo siday u eg yihiin. waa inaad aragtina u taqaanaa. waayo ardayga haddii la yidhaahdo calaamad su-aal oon weligiiba loo qorin calaamad su-aal la dhigin oo calaamad su-aal meel loogu qorin oo calaamad su-aal afka laga yidhahdo sidee buu u garan karaa calaamad su-aalku talow waa wax sidee u eg, ma wax dheerba, ma wax gaabanba, ma isku tallaabba, ma wax qoolaamanba. waa in ardayga calaamad su-aalkii loo qeexaa oo uu arki karaa marka su-aasha la weydiiyo. waa inuu arki karaa. waxaynu nidhi waa imise saacaddu baynu nidhi waa in calaamad su-aalku muuqdaa. marka waa inuu ardaygu yaqaanaa meesha u dhacay. waa inuu yaqaanaa astaanta iyo qaabka u egay waa inuu yaqaanaa. haddii kale qofkaasu ma garan karo. su-aashaydaasu hadday iga tagto anigoo qoraal ah hadda haddii ila fahmi waayo maadaama luqaddu kala gaatay hadduu ila fahmi waayo waa imise saacaddu imise bay sheegaysaa baan u bedeli karaa. waar ii sheeg inta saacaddu tahay sidaan doona u bedeli karaya. laakiin qoraal markaan dhigo ee ay iga tagto qoraalkanu waxaa la doonayaa qof kasta oo qoraalkaygaasu arko oo akhriyaa waa inuu fahmi karaa su-aashaas waxa ay tahay inay su-aal tahay, calaamaddu su-aasha inay leedahay, su-aasha aan doonayaa waxay tahay markaa waa inuu fahmi karaa. waaya sidaa aawadeed baynu markaa u nidhi waa in la ogaadaa ama ardayga la baraa calaamadaha ay leedahay markaa su-aashu astaamaha calaamaduhu ay leeyihiin. weydiino kolkaa haddaan kula weydiimo waa maxay sumadda weydiintu. sumadda weydiintu markuu weydiiyo ardayga waa inuu garan karayaa sumadda weydiintu waxa ay tahay. ila hadday iskaga ka qaldamaan sumaddii weydiinta iyo labadii dhibcood hadday iskaga ka qaldamaan dee waa khalad. meeshii wixii aan sameeyey markaa waa khalad. markaa waa inay kala caddahay sumadda weydiinta iyo sumaddii ahayd laba dhibcood iyo waxay ka hadlayeen iyo sumadda weydiinta waxay ka hadlayso. waa inaan naqaanaa goormo ayaa la adeegsadaa sumadda weydiinta. ma marka la gabyayo, ma marka la sheekaynayo, ma marka
goormaa sumadda la adeegsada sumadda weydiinta waktiga la adeegsado way naqaan ma marka qof la hadlaye wax ka doonayo waa inaad taqaanaa goorta la adeegsado sumadda weydiinta iyo qaabka loo adeegsado waa inaad taqaana markaa iyo qaabka ay u dhiganto intaba waa inaad taqaana marka gabagabada casharkeenii curus baa halkan ku yaala waxaanu had iyo jeer curusku wuxuu tilmaamayaa inuu ardaygu hal abuur leeyahay wax qori karo waxa lifi qoraal samayn karo isagoo awoodiisa ku tijaabinaya ayaynu eegaynaa qoraal kooban adoo adeegsanaya sumadda weydiinta qoraalkaagan muhiimadda ka muuqatee lagaa doonaya curuskaaga waa maxay waa inaad meel ka muuqato su-aashii weydiintii ama calaamaddii weydiinta ka muuqato iyo sumadaha qoraalka waa inay hadday sumado kale jiraan hadalkaaga ila qoraal baad samaynaysaa sheeke hadday sumado kale galaanna waa inaad taqaanaa meesha ay hadalkaagii hore ku dhammaanayo haddii hadalkii dhammaadee waa ina halku ku dhamaada kii kale halku ka bilaamayo haddii hadalkaagiyo socota aad kala goyso hakad meesha uu ku kala go-an yahay waa inaad samaysaa markaa u samaysaa calaamaddii lagu garanayay inuu hadalkaagii kala go-ay sidaa awgeed muhiimadda aynu ka leenahay casharkan waxa weeyaan wuxuu ahaa in ardaygu ogaado meesha iyo qaabka iyo waxay tahay sumadda weydiintu iyo sida loo isticmaalo ayaynu haddii alla ka dhigo casharkeenna gebagabadiisii ku soo xidhaynaa in ardayguu fahmay oo uu garan karo astaanta weydiinta qaabka loo isticmaalo xilliga la isticmaalo iyo qaabka ay u eg tahay sumadda weydiintu waa calaamad nooceeya ayay u eg tahay halkaa waxaynoo ku dhammaaday casharkeennii labaad ee cutubka 9aad ayaa halkaa inoo ku dhammaaday insha allahu tacaala intaaynu markaa dib ugu kulmi doonaa casharkeena dambe wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku werwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahadsan mayno waaban mayno warwareegi mayno eewean mayno wahadsan mayno waaban mayno warwareegi mayno